kuwa kala dhuntaan dadku xilliga cagaarka ay faa'iido imaadaan laakiin saaxiib yar fursad weyn baa maanta uga jeedaa almost saaxiib yar coinankay dhamaantood maanta waa la daadiyay ilaa saaxiib yar u dambeeyay dhansa loo daadinayay boqolkiiba mataqaana 7 boqolkiiba 7 boqolkiiba 5 boqolkiiba qaar baad 8 iyo 10 gaaray waliba soo fursad halkan ka banaan baa raba maanta saaxiib ina la wadaago update ku dambeeyay gudahan saaxiib yar suuqa cryptocurrency BTC sa ujeedaanba boqol iyo waxa marna saaxiib yar 12,000 soo markaa dareemi kartaan sida xoog leh saaxiib yar loo daadiyay sidoo kale saaxiib yar update u dambeeyay crypto raba in ay ka daba geeyo newsada ku weynaan soo baxay aflaata ka saac u dambeeyay raba halkan saaxiib yar in ay kula shargareysa la socotaa ma saaxiib yar normally suuqan cryptocurrency concept weyn baa jiro oo dhaga mataqaana volatility ama very volatile suuqan mar iyo koriyo su'aada so xilliga suuqan la soo fuulo xilliyadan kala baa kamid the right time way xilliyadan hadii aad hore ugu jirin hadii aad hore saaxiib yar ugu jirin dabcan DCA baa sameynaysa oo suuqa markuu dhowr bir kadib soo laabto ugu meeshii awal aad joogtay كفك بوك جين دونا أما فائدة كوفير دون قفك DCA ده سميه so one of the strategies مهمة ويسحب يا DCA لكن قرمي الله سميه سيلو سميه مقال كان ربع ما سحبينا كل وذاك وكسحب الهدي أم كبر نسحب البيت قيمة واحد من سحب بقول يلا بيت طبعا كون إن بما نسحب بقول 20 صدح بيباي way كل وذا هاي for the last 7 days سحب يا 3.71 بالسود هذه كونك إثيريوم أثناء سحب يا سأوجد دام بس صدح كوني شمال سوات تضرب مريا أصدق حتى 5% بالسود هذه كونك أدلو هذه سحب الواحد كم سولانا ولا هذه سأوجد دام بقول كيف 9 بالد هذه تيمبو almost كلها بقول صدح مريا تضرب برود بس أد بالود هذه سواء كثنا نفرصة باكثر إنك صار لقيا بينو سوق هوستي هذا إنك صار لقيا سوق إنك سحب لقى يابا إنه هو سي دوج ولا دادي أصلا سحب الدوج كون كان إيش كوهاي كون كان سحب الدوج إيش كوهاي تاتي سعاد وديارسين هاي نيجي وحصل لي هاي دت كلا دوج كتاجر دون وحكم إذا سحب الكوين كله كتاجر لبس أنا كهر مركا حصل لي مركا لا دوج مليونير صباح وأين ودت بدنا هو هيستان سو مركا دوج برنا كان يجبن كاردانو أصلا وأركام معلومة سبيسي بدنا بالك كرين يا كاردانو I don't know why وأوجد إن سحب يال شنتي كوين أو متخنا US وحوي ريزافكا ومراكز سميستين ولا قدر كاردانا ولا والله يا صوت هذا لو قدر وكون رتي أدو جوانا تو كلا سحب الكون كأن أتكو حزي الزوي أصلا سويت قدام وداسية كون كل عجيبة ماشي أن كنت لو سحب متخرن كمان في عيني زي كان أصلا أدو في عيني رنتي تنبال دادي سو مركز أوجد إن سحب يال قدام سوق ولا دادي برسنتج في عن بلد دادي فير أنجري إنك سحب يال فيش تفايف مريا ونيجرا أول تكون نسكو سويت قدام وسوق دوادي 42 مريا the more BTC لداديو دومينز سحب يال ويرادو the more altcoins كا runtii la arko saa ogaadama saaxib yaal bishii hore toddobaad mataqaana bitcoin waxa sameeyay all time waxa cusub sameeyay saa ujeedaan ba halkan hadii aan ka fiirino kale exactly mataqaana waa kana July 14keedii bay sameeyay 123 bay gaartay marka taas keentay marka soo all time hay maadaan mostly saaxib yaal suuqa hoos bay adayo correction sameeyaa oo soo daataa Ethereum sidoo kale asna meel fiican buu soo gaaray sidoo kale saaxib koonka Ethereum hadii saaxib aan ka warbi Ethereum saaxib aad ba loo gadanayaa waa the second coin markii laga soo tago after crypto after bitcoin baa ka wada xoog loo gadanayaa way Ethereum hadda waa idin sheegay Ethereum hoos ka sii Ethereum haysto iska iibin meel leer ba idin la wada runtii waxa weeye xilli hore 21 ugu dambeeyay ah weyn uu sameeyay all time cusub sameeysto so fursada ka banaan all time haygiis u dambeeyay saaxiibayaal waa kana waa 21 ba ugu dambeeyay 4,756 koob gaaray so marka xaq weyn baa looga jeeday bishii la soo dhaafay aad baan institutionada iibsanay team Trump baa iibsanay shirkado weyn baa iibsanay hore loogu aqoon shirkadii waaweynaa baa iibsanay sida bitcoin loo iibsanay baa loo iibsanay XRP xaaladiisa wajida saaxiibayaal kan uu iska wareegay 2.91 asaga daaditaankii kuma jiro waxyaalaha XRP saaxiibayaal la yaabeen sanadka waxa weeye crypto marka la daadi asaga daaditaankiisa ugu dhamaa ko kale hadda BTC oo jeedama 3.7 asaga 3.7 buu ku dhawaay 6 buu yahay Ethereum ka badan waxaan dhan ka badan marka XRP caadi maahan dad badan waa haystaan systemku uu mashruuc u qaabilsan saaxiibayaal Swift bank systemka bangiyada hadda isticmaalaan nidaamka xawaalada bangiyada asoo blockchain weeye waa meesha loo socdo so kaasna waa ka warqabtaan wax badan XRP mataqaana 24 kina waa qiimeeyna sanadka la soo dhaafay koonankii aan qiimeynay buu ku jiray laga yaabo in meel dheer sanadkan gaaraan inkastoo aniga asla leeyahay burankan wuxuu gaari doonaa 7 ilaa 10 buu gaari doonaa dad ba aaminsan inuu meel fog u gaari doono qaar ka aad u cabsan $100 bilyan laakiin aniga macquul ila maahan soo kale sabab Ethereum asla leeyahay burankan wuxuu gaari doonaa ilaa 7,000 ayaa meelahaas 5,000 7,000
تقول صدق معي هاسيا sidoo kalena sol sidoo kale ayadana meel fiican bay gaaraysaa sidoo kale saaxiibayaal haddii dhanka newska and the guys website-ka hala booqdo geela.crypto.com baa lahaa si maalinle wax u soo gelinaa newska soddon beri news baa la soo geliyaa soo hadda maanta waa 5 bisha saa u jidaanba waa kana newska wararka kana ku dhufanaysaa aqoon guudan soo gelinaa sidoo ma BTC cycle BTC ayadana hal laga faa'iideysto update-ki dhankaas xeerarka saaxiibayaal haddii aan fiirin aqalka cad ayaa diyaarinaya amar fulineed lagu bartilmaameedsanaya bangiyada takoora dadka muxaafidka ah ee shirkadaha crypto bangiyada isku daya in crypto ka hortagaan aqalka cad baa isha ku haya soo marka waa dareemaysaa waa dhaqan cusub oo White House-ka waa friendly BTC friendly Bitcoin iyo Trump inuu mataqaana community crypto aad u aaminsan yahay dhanka markaa fiirna saaxiibayaal exchange inflow iyo outflow-ga maalinka saaxiibayaal shalay oo ahayd 4 August waxa exchange-yada mataqaana soo galay waxa saaxiibayaal exchange-yada soo galay Bitcoin dan 35,000 oo Bitcoin baa soo galay oo u dhigmanta saaxiibayaal qiimo ahaan 4 bilyan waxaana ka baxay 32,120 BTC oo aydan u dhigmanta 3.69 bilyan tan waxay ka timid saaxiibayaal in Bitcoin suuqa ay ku soo qalqalayso so website kan saaxiib adinka idin qornaa daily aniga teamka halaga faa'iideysto newska crypto BTC iyo soo gelina dhanka saaxiib stable coins-ka hadii aadna hay'adda maamusha bangiyada iyo lacagta Hong Kong ayaa muujisay dabacsanaan ku saabsan iswaafajinta lacagaha stable coin-ka halkaasna update-kaas baa ka jiro soo marka inta kale adinka idin dina saaxiibayaal soo akhrista kaliya meeshan kuma sii deyno wararka waxaan ku sideenaa aqoonada article-kan fiiri CBDC fi script kan balas badhiga waa maxay CBDC baa kan loogu sidee looga hortagaa khatarta suuqa crypto khataraha scam sidee uga hortagi kartaa soo marka tulooyin baa meeshan ku bixinay information badan baa ku bixinay oo bilaash by the way laga faa'iideysto adinka idin qornay waxaan saaxiibayaal teamka bilaash weyn waxaan qarash ugu bixinaa waa in iyo waqti juhdi dadaal u galinaa in saaxiibayaal update u dambeeyay crypto ay heshaan okay marka hadda maxaa loo baahan saaxiib inaad sameysaan hadda DCA baa horta la sameeynaya maadaama saaxiibayaal suuqa uu guduud yahay suuqa uu dhacsan yahay DCA baa sameynaysa DCA oo sameeysa ayar u gal 10% maanta samee 10% samee maanta bari hadduu sii daato sidoo kale saaxiibayaal 20 kala samee fiiri lacagtaada DCA-da adiga ku xiranta ma 500 baa haystaa ma 200 kun doolar jeebkaaga ku xidhan laakiin DCA ayar baa suuqa hadda DCA wada sameeyay lacagta ninka gashay bari baa laga inuu si aado soo marka suuqa waxa dhan crypto cash is the king weeye DCA-da marka suuqa soo laabto faa'iido fiican ma helaysaa xitaa lacagta DCA kula sameeyay waa la soo bixi kartaa suuqiin markuu qiimaha ku ogeed buu ka dul maraya awal kaaga soo daatay soo marka DCA-daas baa la sameeyaa the right time la gala bay ka mid tahay saaxiibayaal crypto markuu daadsan yahay fiiri hadda Bitcoin 103 maraysa hadda marka muuqaalka bilaabana 112 bay maraysa so you waa u jeedaa saaxiibayaal 123 baa last month la geeyay so waa u jeedaa difference suuqa soo daatay xilli fiican oo la galay by the way bishan August iyo September laga faa'iideysto late bishii la soo dhaafay August iyo September